السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسو نقد وناكسن صاحبيال halkaad iga daawanaysaan waa YouTube channelkayga Abdalla Muxya ama Chef Abdalla qof walba sidoo uu yaqaano. Haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo dadka ka faa'iideysta muuqaalada aan soo geliyo haddii ay noqoto jaamacadda, haddii ay noqoto skincare, haddii ay noqoto DV lottery. Waxaan idin ka raali gelinayaa haddii aad maqashaan diyaaradaha codkooda airportka agtiisa deganahay marka igu qaata beri ilaa iyo maanta ilaa beritool halkaan aan joogi doonaa oo mar walba waxaa maqli doontaan maqalka diyaaradaha marka yara dulqaata. Si kastoo ay ahaataba muuqaalkan waa muuqaalkii aan idinka ballan qaaday inaan idiin soo gudbin doono su'aalihii ay iga soo weydiiseen Snapchat-ka ee ku saabsanaa jaamacadda iyo waxyaabaha aan barto. Su'aalaha waa soo koobayaa 10 su'aalan ku soo koobayaa. Haddii su'aashaadii sidee ay tahay aan u soo qaadanin dadka qaar su'aalahooda way soo wada noqonayaan marka su'aalaha waa isku soo wada ururiyay 10 ugu muhiimsanaana aan uga jawaabi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waa soo celin doonaa su'aalaha iyo jawaabaha muuqaal kale ta ka soo sameyn doonaa waan idin siin doonaa jaanis ay ugu weydiisaan su'aalo haddii ay noqoto DV lottery, haddii ay noqoto skincare, haddii ay noqoto cunto karinta ee jaamacadda aan ka dhigto. Su'aasha ugu horeyso laptopkana ka aqrinaya taleefanka lama haysti marka igu qaata haddii aan saan inta wax u fiiriyo laptopka fiirinaya. Su'aasha koowaad waxay tahay maxaa kugu dhaliyay inaad barato cunto karin? Waxa igu dhaliyay wax kale ma ahan, waa waxa aniga jeclahay, waa waxa xiiseeyo maadaama ay tahay waxa xiiseeyo oo aan jeclahay oo aan ku raaxaysto mar walba oo aan sameynayo. Waxaan go'aansaday inaan professional ku noqdo oo aan jaamacad u aado. Sidaas ay igu dhalisay cunto karintane waxaan soo bilaabay anigoo yar oo da'da 10 aan gaarin. Isku filnaansho inaad gaartid inaad cuntadaada karsatid in waxaa calooshaada gelin lahayd inaad baratid sida loo sameeyo waa wax aad u muhiimsan. waa skill ku anfici doono adiga ku anfici doono familkaaga anfici doono qof walba oo kugu hareeraysan anfici doono. marka sidaas ay ugu dhalisay. Su'aasha labaad haddii aan u gudbo su'aasha labaad waxay leedahay ma la idin baraa cuntooyinka miisaanka la iskaga rido? cuntooyin gooni ahoo miisaan la iskaga ridana lama baro balse waxaana la baraa nutrition class aan leenahay oo hadda noo socda qaadanayno. wax walba aad u baahan tahay protein hadday noqoto, carbs hadday noqoto, fiber hadday noqoto, fats hadday noqoto, cunto healthy ah inaad cuntid nutrition looga hadlayo class ahaana la baraa balse ma jirto jikada intaan galno maanta cunto healthy ah sameynaynaa may. muhiimadda waxay tahay inaad taqaanid waxa healthy ah iyo waxa aan healthy ahayn iyo waxyaabaha oo daruuriga asaasiyaadka ah u baahannahay. marka ma jirto wax oo khaas ah oo class diet ah ma jiro oo la baro. Su'aasha saddexaad waxay leedahay doofaar maalinta la sameynayo ma la idinku qasbaa inaad sameysaan? may na laguma qasbo. kalaaska qofka kaliya ee diinta islaamka ka haysta aniga waayo muslimka ah. macallimiintana mar hore ka taxadareen in arday diinta islaamka ee haysata ay jaamacadda imaanayaan. markii ardayda doofaar sameynayaan dadka aan diinta islaamka haysanin anaga waxaana loo dhiibaa cuntooyinka sida chickenka ama beefka lo'da iyo seafoodka waxaas ku practice gareynaa oo aan sameynaa karina. marka wax qasab ah ma jirto qof ku qasbaysa ma lahan. meeshaan lacag baxsanoosaa cid wax kugu qasbi karta ma lahan. diin islaam inaa haystid freedom of religion meeshaan ka jirto. qof walba diintiisa waa in lagu ixtiraamaa. qof walba diintiisa waa in lakum diinukum waliy diin lagu dhaqmaa meeshaan. marka I hope inaan su'aashaada kaaga jawaabay. Su'aasha afraad waxay leedahay takhasuskaaga ma macmacaan baa ka dhigan rabtaa? may macmacaan takhasus kama dhigan barabi balse waa jeclahay waxyaabaha macmacaanka ah baking and pastry-ga ah balse takhasus kama dhigan lahayn oo markaan dhameeyo jaamacadda qaybta bachelorka markaa aadayo kamaanan dhigteen. Su'aasha shanaad shuruudo ma lagugu xiraa si aad u bilaawdo jaamacadda cunto karinta? The only shuruud ama shuruudda kaliya ee lagugu xiraayo waxay tahay waa inaad haysataa shahaadaha iskuul ah. shahaadaha iskuul haddaa haystid waa bilaabi kartaa jaamacadda cunto karinta
oo maaragtay cid shuruud kale oo kugu xirayso oo duwan ma jirto. Su-aasha lixaad, meeqa sano ay kugu qaadanaysaa inaad chef noqoto? Waxay igu qaadanaysaa 2 sano. haddii aad rabtid inaad higher education aad sii aadidna waad kusii dari kartaa, balse chef inaad noqotid 2 sano ay kugu qaadanaysaa. 4 sano waa ku dari kartaa, 2 sano kale waa ku dari kartaa si 4 sano kugu noqoto. sidoo kale 2 sano kale oo master ah waa ku dari kartaa, aday kugu xirantaa, balse minimumka waa 2 sano ama sanadii bar, marka aday kugu xirantahay. Su-aasha 7aad, free miyaad ku dhigataa jaamacadda? May, wax free la dhahaa ma jiro. haddii aad haysatid scholarship ama financial aid haddii ay kaa caawinayso dowladda, markaas is kind of free. laakiin haddii aadan labadaas aadan haysanin, adiga iska bixinayo, waana maaragtay wax adiga dusha kaa saaran. So scholarship haddaadan haysanin iyo financial haddaa haysanin, jeebkaaga inaad ka bixisid waayo. Su-aasha xigta, qofkan su-aal oo saas ahna ma ahan, balse wuxuu noo soo diray fariin ah in wuxuu yidhi aniga waxaan jeclahay inaan barto cunto karinta, waxaan joogaa Yurub, balse way iga niyad jabiyeen oo waxay igu dhahaan beri haddii aad maqaayad ka shaqo bilaawdo doofaar baad karinaysaa. cid doofaar kugu qasbaysa ma lahan. shaqooyinka xataa markaa maaragtay meeshan aad xareysanaysid waa usii sheegaysaa qof diinta islaamka heestaan ahay, yani maqaayad daaribta inaad ka shaqo bilaawdada sheegaya, cid kugu qasbaysa ma leh. soo marka dadkan iyo ku niyad jabinin, waxaad jeceshahay inaad baratid. haddii ay tahay bilaaw, hore u soco, qofna ha dhagaysanin, qofna yuusan ku niyad jabinin, qofna maaragtay yuusan kaa dhaadhicinin inuu maaragtay hoos kuu liido, yuusan kaa dhaadhicinin qof inaadan waxaan aadan samayn karin, waxa la samayn kara inaysan ahayn ayaa lagu sheegin. So waxaad dee kaa go-an tahay, bilaaw. dadka gadaashaada ka hadlaayo u ogolaaw inay joogaan gadaashaada, because qof gadaashaada jooga intuu kaa daba hadlo booskiisuu joogaa, taasoo ah gadaal. so marka isku mashquulin dadkaas. Su-aasha ku xigta waxay leedahay, markaad dhameyso xageed shaqo ka bilaabaysaa? waxay ku xiran tahay inaan rabo inaan horta kow maqaayad inaan ka shaqeeyaa rabo. haddii ay noqoto inaan maqaayad ka shaqeeyana, waa maaragtay insha allah waa arki doonaa, balse iima qorsheysano inaan maqaayad ka shaqo bilaabo oo aan dad la shaqeeyo ama u shaqeeyo. balse internship waxa la dhahaa sameynaa, maqaayadaha internship ka sameyno, hadhow markaa dhameysid hore kaa qaadanayaan, way ku yaqaanaan, iyaga ku tarin gareeyaan, so way kuu fududaanaysaa in aad shaqo ka heshid. ma fahantay? marka internshipka eventiyada oo maaragtay iskugu imaadaan jaamacadda, maxaa la dhahaa maqaayadaha isugu imaadaan. sidoo kale waxaa jiro fair oo maaragtay ka dhaco stateka ka dhaco, maqaayado badanaa imaadaan iyagana. meelahaas haddii aad tagtid oo aad volunteer ku shaqaysid, hore kaa shaqaaleysiinayaan, wax oo la hubo waayo. sidoo kaleete macallimiinta noo dhigo connectiono badan ee waxay la haystaan maqaayadaha iyo sidoo kaleete meelaha bakeryga oo foornooyinka waxa lagu sameeyo lagu dubo. isla markii haddii warqad recommendation ay diraan, ayagana way ku shaqaaleysiinayaan. fa marka su-aasha aan i weydiisa, markaa dhameysa xageed shaqo ka bilaabaysaa? weli iima qorsheysno inaan maaragtay meel shaqo ka bilaabo hadduu ilaa yidhaahdo. haddii waxay isbedelaanne halkaana kala socon doontaan hadduu ilaa yidhaahdo insha allah. su-aasha ugu dambeyso waa su-aasha hadda le maaragtay ku daba xigtaa oo isku xiran yihiin. mustaqbalka maqaayad inaad furato ma ku haminaysaa? insha allah mustaqbalka wixii dhici doona ma naqaano. su-aashaan su-aal iska private ii tahay, balse waa arki doonaa mustaqbalka u deyn doonaa inaan maqaayad furto iyo in kale. hadduu ilaah yidhaahdo waan arki doonaa, balse waa kolley waxaa baranooy waa wax jiko ku saabsan. maybe inaan maqaayad furto, maybe inaan wax kala qabto, balse hadda qorshaha iguma jiro maqaayad inaan furto. mustaqbalkana wixii dhici doono waxaa laga yaabaa wax inaan hadda idin sheego, hadhowna wixii ay sidii noqon waayeen. marka waxaa rabaa inaan ka yara gaabsado wixii mustaqbalka aan sameyn doono, wixii anigii inaan isku koobo oo private ii ahaato keliya, hadhow markaa idinla wadaago si aad u aragtaan oo maaragtay waqtiga aan u daayo hadduu ilaa yidhaahdo insha allah. waxaa rajeynayaa su-aalihiin inaan si saxa idinkaga jawaabay.
wixii maaragtay aad fahmi weysaan commentiga igu qora, commentiga igu reeba, waan idinkaga soo jawaabi doonaa. mar kale aan samayn doonaa su'aalaha inta kuma joojin doono. Q&A-ga waa kasii wada doonaa halkan insha Allah. maanta waxaa kaga hadlaya keliya su'aalihii liiga soo weydiiyey jaamacadda iyo cunto karinta iyo waxyaabahaas. muuqaalo kale oo dad badan ee xiiseynayaan jiro oo lottery inaan kaga soo hadlo, kuwa qaar skin care-ka inaan kaga soo hadlo, self care-ka waa ayagana insha Allah jaaniskiina mar kale idin siin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. muuqaalka halkaas kusoo gabagabeynaya. waan idinkaga mahadcelinaya daawashada muuqaalka. fariimihiina waa arkaa, sidaa ii daawataan waa arkaa. aada u mahadsantihiin. waa isku dayoyaa sida ujeedaan in maaragta active aan noqdo. shalay kaliya idin gambiye, shalay toolan hoole iyo khaas ah ku maqnaa oo maaragtay aroos iyo waxyaabahaas ku maqnaa. waa iga raali noqonaysiin. meeshayda ma joogo sida ujeedeen, hotel joogaa. marka baladkayga ku noqdo vlogada meeshaada kasii wada doonaa. isniinta iyo arbaco iyo talaadii arbaco iyo khamiis jaamacadii aadeena vlogadii waana sugooyin insha Allah. halkaasaa ka sii wada doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. aada kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalka. haddii aad channelka ku cusubtaa mar kale nagu soo biir oo ka mid noqo dadka ku xiran channelka. wixii aa khalday min shaydaan, wixii aa saxane alxamdulilah. aada idin salaamaya. waxaa idinkaga tagayaa fi amaanillah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.